bisha September ayaa sida caadada gobolka Minnesota ardayda Soomaaliyeed ee degan waxa ay u dareeraan iskuulada haday noqon lahayd inay aadaan kindergarten ilaa iyo high school ama collegeooyin. Si kastaba ha ahaatee iskuulka la magac baxay Lincoln International High School ayaa sanadkan waxa ugu yaboohaya Soomaalida degan gobolka Minnesota in ay ka soo qayb qaataan barnaamijyada quruxda badan ee uu diyaariyay. Maraan hore u wareysanay maamulaha iskuulkaasi ayaa si fiican ugu faahfaahiyay Faisal waxaana uu yiri ardayda cusub ee 9 grade-ka iyo ardaydii hore u joogtay haatan ka qalin jabin doonta sanad dugsiyeedka 2010-2011 waxaan u diyaarnay barnaamijyo cusub oo aan ku soo kordhinay. barnaamijyadaasi ayaa waxa ka mid ah buu yiri mar uu si toos ah noogula hadlayay qadka telefishinka ee live-ka aanu leenahay barnaamijka Jimcaha ayaa waxa uu ku sheegay in barnaamijkaasi uu yahay ardayda cusub ee 9 grade-ka in loo diyaariyay barnaamijyo markaas ay ku booqanayaan kolleejooyinka si loogu dhiso niyadooda in ay markaas tiigsadaan high school-ku inuu yahay bilow laakiin aysan ahayn dhamaystir. waxa kale oo sheegay in markaas uu diyaariyay barnaamij qurux badan oo ah tutoring oo ardayda marka ay ka baxaan fasalada inta aysan basaska raacin loogu talagalay hal saacadood oo markaas ay ku diyaariyaan maadooyinkii ay markaas qaateen. halka naga daawanaysaan waa Universal TV barnaamijkii aanu idinka soo deyn jirnay waqooyiga America gaar ahaan labada magaalo ee mataanaha ama afkalaad loo yaqaan Twin City oo ah St. Paul iyo Minneapolis. Studio caawa aanu idinka soo deynaa barnaamijka waa St. Paul. barnaamijka waxa caawa idin xiriirinaya anigoo ah Cabdimaalik Maxamed Askar. sidoo kale dhinaca technicada waxaan la joogaa Sakariye Abdaar iyo waliba Kuweydi oo aan halka ka maqlayn iyo waliba fanaanka caanka ah oo runtii goodhow aan idinka soo tusi doono barnaamijkiisa quruxda badan leh halkana idinka soo deyn doono. wagaag studio-ga maanta waxa marti noogu ah runtii oo ku soo qaadan hadii Allah wada gol aan kaga hadli doona waalidiinta iyagu haysta caruurta runtii age-koodu ay ka bilowdaan 15 ilaa 18 ama mararka qaarkood ba 14 ilaa 18 ee iskuulka high schoolka ku jira. haddaba high schoolka waxa laga yaabaa wadamo kala duwan maadaama university laga daawanayo arday inay joogan ka dhiganaya high school London ama ka dhiganaya Talyaaniga ama ka dhiganaya Africa ama ka dhiganaya Australia laakiin se laga yaabaa in da'doodu ay kala duwan yihiin. si kastaba ha ahaatee ardaydaasi waxa markaas jira inay kala kulmaan dhibaatooyin high schoolka marka ay dhiganayaan. sidoo kalena waalidiinta waxay kala kulmaan iyaga laftigooda dhibaato gaar ahaan waliba waalidiinta runtii gobolka Minnesota oo markaas ardaygiina uu weynaaday uu doonayo inuu isagu choice-kiisa ama markaas uu wax dalbado waalidiintuna ay la doonayaan wax wanaagsan halkaana uu ka yimaado isku dhac. haddaba studio-ga waxaan ku soo casuunay Faisal Guuleed oo isagu ka maamulaha iskuulka loo magac baxay Lincoln International High School ee ku yaala gobolka Minnesota gaar ahaan magaalada Minneapolis. Faisal ku soo wastiriyo mahadsan Cabdimaalik. Faisal maadaama aad haysaan arday high school Somali kaliya aan ahayn ee Mareykanka caadiga ay dhigtaan Spanish Chinese cid walba iskuulkeena joogto laakiin maanta aanu ka hadlayno Soomaaliga ardayda Soomaaliyeed waalidiintu dhibaato ku qabaan ardayda laftigoodana dhibaato ku qabaan waayo waalid isagu sidii Soomaaliya fakaraya la jecel cunugiisa inuu wax barto iyo cunug isagu halkan ku barbaaray oo la doonayo inuu la jaan qaado ardaydii ay isla soo koreen Mareykanka isku dhacba halka ka yimaada. arintaasi sideeba guud ahaan adoo ka hadlaya maadaama uu caan u yahay barnaamijkan arday kuway joogan laga yaabo inaysan dhibaato ku qabin laakiin see doonayeen inay ka faa'iideystaan barnaamijkan maxaa kula tahay. bismillaahir rahmaanir rahiim. marka hore Cabdimaalik waad mahadsantahay adiga iyo bahda Somali Show studio quruxda badan ee igu soo dhaweyseen in badan ayaan idinimi marka horta boqolkiiba waad mahadsantiin fursad aad siisaneen arintaas bal aan in yar inta time-ku inoo saamxo aan wax kaga idhaahdo deewana shaqadayda oo waad ogtahay maalin walba ku dhex jirnaa haddaad dib u eegto haddeer waxaan ku jiray arintan waxbarashada ama iskuullada ilaa 15 sano marka haddii aad eegto ardayda Soomaaliyeed ee iskuullada timaada waxaad moodaa inay hadda isbedelayso oo ardayga iman jiray 5 sano 10 sano ka hor iyo ardayga maanta imanaya aad u kala duwan yihiin. sababtuna waxa weeye ardayga maanta high schoolka ee grade 9 jooga ama form 1 wixii ay dooran jirnay iyo ardayga 5 sano joogay waa kala gaar kaasi wuxuu ahaa arday badan ay yimi oo ama aan aqoon hore oo badan lahayn ama literacy uu yaraa hadda waxa soo baxay arday ama iyagoo 2 sano ama 3 sano jira wadanka yimi ama badee mataqaanay halka ku dhashay oo waalidkiina waa Soomaali oo aniga iyo adiga oo kale oo mataqaanay wadankan u soo hijroobay halka soo degay. marka isku dhac wuxuu ka imaanayaa ilmihii mentality
dee western mentality واقرت ayuu haystaa oo mataqaanaa wixii la akhriyay iyo wixii la xidhanayay iyo wixii la dhageysanayay iyo wax walba way ka duwan yihiin waxa waalidku u fahmi karo واقرت ma garanaysaa marka waalidkii wuxuu rabaa ilmihii inuu controlo oo uu mataqaanaa iskuulka u tagi lahaa dharka u xidhan lahaa buug u akhrisan lahaa masaajka waqtigu tagi lahaa quraanka waqtigu u qaadan lahaa waalidku wuxuu rabaa inuu control caynkaas sidii ani adiga leeyno soo koriyay oo ilmihii mataqaanaa kala hadlo ilmihiina wuxuu rabaa waxaas ka duwan marka halka waxa imanaya wax afka qalaad lagu yiraahdo power struggle oo marka uu isku dhac waalidkii iyo mataqaanaa iyo ilmihii uu ka yimaado daweynteeduna wax hal barnaamij lagu soo koobi karo ma aha maalin walbana waalidiinta markaan la hadlo waxaan leeyahay ha ka filin ilmahaagu inuu 100% isbedelo oo kale wax walba waan tuuraya maxaad rabtaa aan sameeyaa marka waa inaad compromise samaysaa oo ilmihii aad la shaqaysaa oo isaga aad study ku samaysaa ilmuhu muxuu jecel yahay haddii aana taa samayna waa dhibta inugu badan ay haysata ilmihii marka inuu ama iskuulka ka cararo ama uu dee gang raaco ama iskuulka uu iska dhex joogo oo sidii wax lagu qasbay oo kale marka dhibaatadu way weyn tahay I think waalidiintuna door adag ayaa hor yaala waqti aad bad maasad intayna waalidiinta soo galan waxaan ku dhex jirnaa dhinaca iskuulka mas'uuliyiinta iskuulka ay ku leeyihiin iskuulku waxay leeyihiin iskuulada saad ogtahay faysal iskuulkeena iyo iskuulada kaleba counselor wax leeyahay wax la taliya ardayda inkastoo aan ku arag counselor parenting ku yiri laakiin se counselor ardayda way leeyihiin ardaygu marka uu freshman ka yahay ee uu ku cusub yahay iskuulkeena uu yimaado iyo ardayga seniorka ah ee ka baxaya maxaa u dhaxeeya farqa u dhaxeeya waxa weeye horta ardaygu marka uu yimaado aad baad garanaysaa systemka waad ku jirtay system principal baad ahayd shaqadan si fiican baad u garanaysaa ardaygu marka uu 9 grade yahay ama form 1 wixii ay oran jireen maybe dadka inta badan ee daawanaysa ay u yaqaanaan waxa weeye the council fara badan buu u baahan yahay noloshii middle schoolka in transition lagu sameeyo oo uma taqaan high school ardayga loo prepare gareeyo oo ah koorsooyinka uu qaadan lahaa iyo sidii uu ardaygu uu transition college u aadi lahaa marka halkaas ay ka bilaabantay waxa jooga oo qaabilsan qof aqoonta leh oo train garaysan oo digriyadeedii haysto oo la guidance counselor qofkaas inta badan Soomaalidu ma laha waa qof Mareykan inta badan waayo sharciyadii baayna qabanayo qofku waa inuu yahay qof license-keedii leh marka qofkaas ardaygu la fadhiisanayaa ardayda waliba hadda soo baxda maadaama ay arday aan luqad uga baahnayn qof kale inuu uga tarjumo ahayn oo arday ama u dhashay ama ma taqaanay proficient level-koodu u fiican yahay marka qofkaas uu la fadhiisanay qofkaas ayaa u sheegaya chartiga ilmuhu meesha u mari lahaa taasi waa taa qofka high school senior-ka ahna waxa weeye same thing the counselor-ku isaguna arkaya waxa uu ka duwan wadadii uu mari lahaa oo ahayd now waad soo qaadatay 9 10 11 grades ki form 1 form 2 form 3 form 4 oo kala tahay ama 12 grade marka noloshan ay transition horle sidii loogu sameyn lahaa ilmahaas oo uu jaamacad iyo college iyo haduu qofku ma taqaanaa technical school aadi lahaa qofkii in la soo hordhigo oo marka ma taqaanay waalidiinta qaar ku xitaa waa la involve gareeya oo waalidka laftiisa qaar ba involved ku in kastaanay dadkeena ku badnayn oo markaas uu la yiraahdo okay halkan aad joogtaa intaas ku dhiman maybe koorsooyinkaas oo remedial courses oo ardayga aan markaa isku filnayn baad u baahan tahay markaana jaamacad baad sidaa ku aadaysaa marka qof baa jooga oo shaqada qabta waa gartay faysal aad baad maasatay maadaama anu aan joogay school K28 ardayda 8 grade-ka dhibaatooyinka aanu kala kulmay jirnay waxay doonayaan high school-ka saaxiibka aaday ama high school xayisiin u yimid way xayisiin badan baa loo soo dalbay inay aadaan laakiin se waalidka wuxuu la jecel yahay iskuul kale taa choiceska ardayda maxaad kala kulantaan ardayda cusub freshman-ka wallahi niyo dhib badan waliba adaab soo koobay dib ugu noqon maayo waxa weeye ardaygu waa runta oo mar haduu waliba waa dadkeena oo waalidiintan Mareykanka ardaygu markuu 7 8 gaadho waaba loo sii berbergareynaya meeshu aad lahaa oo lagala talinaya oo oranaya iskuul hebel inta badan awowihii eedadii familygooda dhan baa iskuulka aad way ku abtirsadaan iskuulkaas oo mooy iska yaqaanaan dariiqi waxa confusionka iyo wareerku haysta waxa weeye waa dadka inaga ma taqaanay cusub halka yimid marka dhibaatada waxa weeye ardaygu waa run waalidku wuxuu u sheegaya wuxuusan garan karin ka bacdina wuxuu iska tagayaa meel badana ama asxaabtiisu joogto ama ma taqaan wuxuu isagu ay haysanay ay jirto
waalidkuna inuu la tashado dad wax barashada sida aniga adiga ku jira oo yiraahdo niyow ilmihii halkaas u aaday maxaad u malaynaysaa marka waxa jira mar labada midba mar saxsan yahay waa gartay oo ilmuhu uu garanayo sababta uu aaday iskuulkaas for example iskuulkaas hadduu focus gareeyo science iyo mathka oo ilmuhu labadaa jecel yahay laakiin waalidka aan rabin inuu aado iskuul kale oo aan labadaa focus garayn waxa labada inaan iskeenin marka waalidka waxa muhiim ah inuu ilmaha la tashado ilmaha weydiiyo su'aalo sababta ugu fiican ee iskuulkaas iqanci haddaad rabto inaad aado laakiin ما تقناي والدك إنه قان سكجارو وقت أدتاي لنا أكاديمي كانوا كهذا كادينو كهذا اللي كلا بدل كيسكول هذا يوالد نحل كلنا وحبرش هذا لنا هذا أرضي ذا فريش مانكا يا أرضي ذا سينيور كا ما حقوق له ده لنا عقرش هذا كاغنيتيف وده وحقوق له ده هرتو عبد الملك واحد شروح لي هذا وأتبدأ أتقرن ستيت ستاندردز oo ma taqaan state-ku wuxuu dejiyaa oo ardayda u dejiyaa standards ay tahay in arday kasta uu ma taqaan laga rabo inuu gaadho marka waxa weeye 9 grade qofku marka uu yahay standard baa jira oo qofka guidance counselor-ka oo qofku waa tad schedule la siiyo oo ay tahay inuu koorsooyinkaas buuxiyo oo prerequisite ay u yihiin ma taqaan koorsooyin kale marka ardaygu markuu qaato koorsooyinkaas ayuunbu koorsooyinka kale u gudbi karaa arday gifted and talented way jiraan oo ma taqaanay dee arday aad u sarsareyso oo level la hor leh geli kara way jiraan laakiin wuxuu waa standardkana waxa weeye dee ardaydu waxay ku geli karaan ma taqaanaa sida loogu charge gareeyo oo qofkii counselorka uu sameeyo ma garanaysa waqti aad ma sad ardayda Soomaaliyeed waxay badanaan ku liitaan laba waxyaalood baa leeyahay Faisal mid waxay ku liitaan dhinaca guriga oo dee iskuulkii marka wax looga soo dhigo gurigi cid dambe oo daba socota oo marka dheesay homework ma dhamaysay inta in la chapterada loo soo diraa akhriya liyaada form baa loo soo buuxaa waalidku soo saxeexaan ardayda qarkood iyagaaba saxeexdo oo geysta dhinaca homework ama responsibility-ga cunuga saaran inuu guriga kala aado haday iskuulka joogtaan arinta maxaa dhibo kala qabtaa ardayda high schoolka 9 waad mahadsantahay Cabdi Maalig I think arinta ugu badan dhibaatooyinka mid kamid ugu weyn ay ka jirto horta waa arintaas waxa weeye culture ama dhaqan ayaa jira dhaqanka encourage gareynaya ama ardayda ku dhiiri gelinaya inay cycle-ka galaan oo ma taqaanay akhriskii oo ma taqaanay homework laga shaqeynayo oo ma taqaanay literacy kale oo ma taqaanay computeradii oo ma taqaanay waxa soo dhan qofkii waalidka laga rabo ilmaha inuu isaga laftiisu ma taqaanay u organize gareeyo horta dhaqankaas Soomaalida aad buu ugu yari laba arrimood baana muhiim number 1 waxa weeye oo caruurtan ay ka cawdaan oo ku oranayaan de guriga waxaad leedahay soo samee guriga kama ba jirto number 1 family oo badan oo ilmihii ma taqaanaa qof walba in qol la geeyo ama ma taqaanaa meel gaar ah oo study room loo sadgareeyo dadka Mareykanka wada arkay laba caruur ama saddex caruur ay leeyihiin marka de ilmihii study meel gaar ah oo study room ama study place ayuu leeyahay ilmihii marka 5 6 caruur guriga joogan arintaas way dhib badanta that's number 1 number 2 waxa weeye waalidka laftiisa oo aan u train gareysnayn oo u yaqaan ardaygu inuu ama ilmihiisu inuu inta iskuulka laga soo siiyay ku filan tahay oo aan u fahansanayn in iskuulku uu yahay qayb kamid ah waxbarashada canuga laakiin gacanta uu ku hayo labada waalid hadii ay markaas jiraan ama miduba joogo arintaasna meesha way ka maqanta dhibaato weyn way tahay tusaale كل وقت قرني ساي شو جا مركز ثاني ما أدو وحن ما هذا السؤال يدو مركز سومالية صابتنا حوي هذا تكتب لي بريرية هذا تكتب ميلها هوم ويك لك عاوية أنت تك أقول بدني عرور تودا يد بس سعدا يقول بعرور بدن المديا لا باهين ودو مركز سومالي دوي مركز وانا أقول واحد هذا كوير هذا ودن كنا يجي نجوا هي وأنت هاي رسيقي قيس سومالي وهوين كنوي هل كانوا حوي هدانا يجوا قعنت إنه جاهين وينو لهم هين رجع ما يدينا يدو أما هو شقينا يعني أما أنت بدن دمول كان فرينا شقاك كلا وأنا الله ينادرس بينه هينا مركب حوي أرنت هوم ورجع كلية معها إن كلتشر جوري قال لقسمي أو علمه مركب دم بقول لقب صدق يسوق أن كويدين وأنتوا كعوك أنا يبوك بهالك إيه مري وين أخريا يا وين فوكس كسرنا أرنتاس آد بيجرتي والدين توحن آد وقول العلن له ملك استيشوغان سومالي وإنه تكسم يسا جوريجا كلتشر يدقن لرجلنا علمه
in uu ogaado in noloshiisa inta ugu weyn ee uu ku gaari karo success ay tahay waxbarashadana iskuulku waa furihii laakiin muhiimadii ugu weyn guriga ayay ka jirtaa arintaas waa arin weyn waa gartay aad baad maasatay waxaa jira Faisal sad ogtahay ardaydu inay mararka qaarkood ku wareeraan subjectiyada ama maadooyinka qaadanayaan especially high school way waratay Soomaaliya high schooladeedii ardaygu meeshuu fadhiyo ayaa macalinku ugu imaan jiray 7 xisadood ama 6 xisadood Mareykankuna waa sidoo college oo kale high school ardayga wareega xisadiisa la siiyaa fasalkan uu dabaqa saddexaad fadhiyay ka labaad wuxuu fadhiyaa ka koowaad buu fadhiyaa wareega ay wareegayaan ama laakarka ay tagayaan marba buu kala soo baxayaan ardayda cusub badan qaar way ku wareegaan kuwa halkan ku soo dhalan ama dhaqanka soo baran maadooyinka xulashadooda iyada laftigeeda dhibaato soo korodhay arday baa ku fiican sawir iyo artist laakiin saaxiibadii ama moolashii Soomaalida ama waalidkiiba waxa laga yaabaa inuu arkaan waxaan inay diintuba ka soo horjeedo qaar waalidku wuxuu yaqaan jiray inuu science-ka kaliya cilmigu yahay ama la barto laakiin science-ku uu badan yahay samar biology kaliya sanay ama dhakhtar iyo engineer baynu aadna nooca maadooyinka ardayda ay baranayaan subjectiyada qaar option waa loo siiyo wada ogtay qaarna lama siiyo option maxaa taa dhib oo kale ku walaal dib weyn baa jira waalidinta Soomaalida markaad la kulanto wax ugu fiican dadka Soomaalidu ay leeyihiin wax fiican oo aanan dad waxaan la shaqeeyay intaas oo nation oo kala duwan adduunka dhan ka yimaad hal mid oo Soomaalida aan aad ugu jecelahay oo ku amaano baa jirta hooyada Soomaalida aan waxba qorin waxay aaminsan tahay waxbarashada waxa laga yaabaa in aan xitaa ficil ahaan ilmihii waxaynu ka hadlaynaa caawadan aan u create garan u sameeyo laakiin waxay aaminsan tahay value qiime inuu jiro waxbarashada waana wax weyn step weyn that's one number 1 number 2 waxa weeye waxa kaloo ka muuqda waalidiinta Soomaalida wixii markii adigu Cabdimaalig oo Soomaaliya jeclayd ama aabaha oo jeclaa deedu haddaad jeclayd inaad maad jeclayd ama macallin noqoto hay isku dayn inaad ilmahaaga ku qasabto taas oo aad arinta realize garayso haddii adiga dream ku ahayd through your engineering ku qasabto haddaad adigu engineering qabsanay arintaas aad bay Soomaalida ugu badan waxaana meesha ka maqan dialogue ilmihii lala fadhiisanayay la observe gareynayay muxuu jecel yahay macallimiintii lala hadlayay awoodiis maxay tahay ilmaha area-da uu ku fiican yahay maxay tahay hadduu qof literature-ka iyo qoridda iyo hadalka iyo ma taqaanaaye waxa ku fiican yahay maybe ilmahan wuxuu jecel yahay inuu journalist noqdo laakiin haddaad qof sidaas tirado ma waxaad noqonaysaa inaad noqoto computer engineer dhibteeda ay leedahay marka waxa weeye ha isku dayn ilmahaaga arintan waa arin muhiim ha isku dayn ilmahaaga waxaad adigu jecelayd oo kaliya absolutely haddii ku suurtagal ku noqon weydo inaad engineer noqoto laakiin aad jecel oo engineer oo ay ku suurtagal noqon weydo inaad samayso ha isku dayn inaad arinta gaadho adoo ilmahaaga sii maraya I don't know inaan clear ka dhigay maybe haddaan English ku sheegay inaan clear ka dhigay waa gartay aad baad maasatay ta kale academic dhinaceeda Faisal sad ogtahay Mareykanku waa xaafado ama iyo county Hennepin County iyo Ramsey County iyo xaafado la kala degay sad ogtahay Soomaalidu waxay ku xidhan tahay guryahan dawladda la siiyo taasoo keentay inay ka guuraan meeshii hore ama meeshii kale u guuraan ama ha noqoto in maadaama familiyada bariyahan dambe qurbaha ay isku imanayaan in ciyaal London ka soo guuraan oo Minnesota yimaadaan qaarna ka guuraan halkan oo hooyadu jeceshay inay aad laakiin ciyaalkii mabdi u kala duwan yahay manhajka arintan ay wareegayaan markuu cunugu 5 mar guuro oo 5 iskuul oo kala duwan u tago oo qaar semester iskuulka yihiin 6 bilood qaarna quarter yihiin 3 bilood arinta maxaa kala kulmay Cabdimaalig ay u shartay inaan time inta ka badan haysan sababta waxa weeye waxaynu ka hadalnaa waxyaabo aad u badan Axmed Daahir markuu halka fadhiyo wuxuu ka hadlayay sportska iyo sida dadka la isugu keeno runtii story-ha xaggan ka daawanayo yani waan dareemaya moogtay powerful ka ay leedahay waxaanad ka hadlaysaa waxa weeye waxyaabaha ugu muhiimsan ee aynu ku badbaadi karno waxbarashada number 1 ka waxbarashadana dadkii waxbarashada yiqiin day wax laga weydiiyo muhiim weeye marka horta aad baad u mahadsantahay laakiin ku soo noqo arrinkaaga waxa weeye had iyo jeer wadankan waynu nimi family ballaaran baynu nahay guriyihii waa qaali guri qofku intuu dego ama guri iibsado oo uu doorto neighborhoodka u degi lahaa oo iskuulka uu jecel caruurtiisa la jeclaa oo ag degi lahaa oo halkaa deganaan lahaa inta caruurta iskuulka ka baxayaan waa arrin aad inoogu yar mid iyo laba samayn kara dadkeenu waxay ku qasban yihiin inay raadsadaan nolosha Mareykanku
aynu u naqaano ka duwan oo ah meel low income ah oo guryihii dawladda ah oo iskuuladu mataqaanay ama aanay fiicnayn ama ay iska baaba'san yihiin oo haddii ilmaha xitaa aad la dadaasho ilmayaashii kale mataqaana ay iska liitaan taas waa mid laakiin booyinka usoo noqo oo guuridda badan ee ilmaha maalin walba iskuulka taagan yahay gaara ilmihii confusion baa ku dhacaya waxaa ka lumaya focuskii iskuul kasta markuu tago dib ayuu u bilaabaya arday cusub macallimiin cusub kalaas cusub mataqaanaa system cusub buu tagay marka ilmihii wuxuu ku dhacay confusion high schoolka markay yihiin marka wareeraan way drop garayaan haddii hadhowna adiga arkay meesha ay tagaan marka waxa weeye I know inaynan choice badan lahayn oo aabihii uu ku qasban yahay marka la guri baa laga siinaya xaafad kale oo dee maaha qof financial isku filan uu ku qasban yahay laakiin arinta inta laga dadaali karo in laga dadaalaa fiican waqti aad ma santay Faisal barnaamijku runta uu dheeriyahay inagoo soo ururinayna waxaa jira dhibaatooyin inuu la kulmo ardaygu Soomaaliyeed markuu iskuulada joogo ama marka uu ka soo baxaba sad ogtahay ardaydan uu la joogay Mareykanka waxa la siiyaa waqtiyada firaaqadooda wax ardaygii u ku nasto qaar waxay aadaan swimming qaar waxay aadaan songs oo kabanay garaadaan qaar waxay sport basket iyo kaash ciyaar saad ogtahay inagu maadaama Soomaalida degan gobolka Minnesota gaar ahaan iyo barnaamijka meel walba laga daawanayo uu dhaqaaluhu yar yahay haddii ardaydeenu waxa laga yaabaa chanceskaas helin waayo waxa laga yaabaa in ama lacag ay ka hor timaado ama waalidkaba uu arko waxaas wax malaayacni inuu yahay oo soo doonayeen waxaan focus ka saar activity-yada iskuulkeena maadaama aan booqday
last week waxaan ku arkay barnaamij soo bandhigteen talent show kaasoo ahaa markii iskuulka spring break la qaadanayay oo waqtiga iskuulka ay dadu 7 maalmood maadaama ay fasax leeyihiin maalintii ugu dambeysay hal saac baad siiseen talent showgaas waxaan ku arkay in ardaydu qaar Soomaali soo bandhigeen qaar muusig bay soo bandhigeen qaar gabaye soo bandhigeen talent showgaasi maxaad ka dareentaan ardayda inay si habkeebaad ku aragtaan skillka noocaas oo kala markay sameynayaan cajiib weyn niyo horta waxa weeye Cabdi Maalig oo dhibta jirta waxa weeye arintani waa process wax weyn bayna qaadanaysaa iyo dadku inay fahmaan time bay qaadanaysaa waxyaabaha extracurricular ama activitieska dheeraadka ee buugga iyo qalinka lahayn Mareykanku waxa weeye aad bay u tixgeliyaan haddaad nooti maalintii khamiistina waxaad aragtay the nations schoolka dhigta Soomaalida Oromada Isbaanishka cid waliba dhaqankoodii bay soo bandhigaysaa waxa cajiib ardayda aad aragtay ee Soomaaliyeed ee Branburka Trinace hidaha iyo dhaqanka ma taqaana ciyaarayay badankooda ama halkay ku dhasheen ama iyagoo yaryar bay yimaadeen marka value in la siiyo ilmihii oo loo sheego ilmaha inuu ka yimi dhaqan dhaqankiisu uu ahayn malihi diid dhaqanka Mareykanka inuu nimi wax xunna waa diidayna wax fiicanna waa ka qaadanayna laakiin ilmaha in loo sheego in diintiisu islaam tahay laakiin uu leeyahay dhaqan iyo heritage isaga u gaar ah arintaas waa muhiim weey af Soomaaliga kamid waxa kamid gabayadii literature-ka Soomaalida kamid dadka Soomaalidu waxaad moodaa inay taa wax faaliyo saarin oo waalid aniga ii yimaada story waa ilmuhu u ciyaarayaan ma taqaanaa hidda iyo dhaqan waxa weeye laakiin hadii ay heesa Carabi qaadaan wax laga yaabaa inaanay la yaabin oo diinta uga dhawaadaan dad badan inay arintaas ma taqaanaa laakiin waa inaan baranaa in wixii la balance gareeyo oo ilmihii quraankii iyo diinta islaamka iyo dhaqankeedii la baro laakiin sab dhaqan uu jiro oo uu leeyahay oo aabihii iyo hooyadii iyo wadan dhan uu ka yimi oo hataa hal ku dhashay uu ku abtirsada u jirto taana marka meel la isugu yimaado kollajada iyo jaamacadaha ka shaqeyn jiray way dhigaan ilmihii hadii aan sida loogu prepare gareyn hadda wuxuu soo qaadanayaa inuu nin aan meel lahayn marka taa waa la sameeyay arinta labaad waxa weeye arinta activitieska for example music and swimmingka maxaan ku idhahdaa kubadii basketballki footballki inagu Soomaalidu runtii ma qiimeyn ciyaalkeena hadiyo jeer iyaga iska tagay intay waalidka ka cararaan arinta waxaan leeyahay ku celcelinaya intaad maqaayad fadhiyo lahayd ama qof kale hours la fadhiyo lahayd waxa way isku day ilmahaaga inaad ka xaysid oo meel uu ku ciyaaro ma 5 meelood kala gaar meel uu ku abtirsado uu kubad ku ciyaaro ama swimming ku sameeyo gay wuxuu kaga badbaadiyaa 100 wax oo kale hadii aan waalidka ilmihiisa gacanta ugu hayn ilmihi muxuu sameeyaa wuxuu tagayaa intuu tago meel inuu ma taqaanay kuwa kale oo sidiisu aan cid la socon israacaan ka bacdina uu trouble galo aakhirkana ma taqaanaa jeel iyo xarig iyo dhibaato badan ay timaado marka arintaas waa arin aan isku daynayno waalid kala hadlo maadaama waqtiga nagu yar yahay gabagabada barnaamijka haddaan soo gabagabeen maxaad ku talinaysaa waalidiinta Soomaaliyeed ee caalamka kala degan ee runtii inta guuraya marba meel u guuraya arday haystana ha iskuulaada waxa ugu horeeyay aan rabo waalidka inaan u sheego waxa weeye meel kasta joogan ama New Zealand ha joogan ama Minnesota ha joogan ama Montreal ha joogan ma Soomaaliya ku jooga ma qurbaha dadka yimi waa inay hal mid fahmaan waa inay fahmaan هذه جرو واحد مقشة قرب بين السوق الله وميل بدن عروتان كلا عررية وين هل متفهمان وين يفهمان إنه كان نسيب بدنيه المها تشوجا Soomaaliya salkeeda meesha doonto haata ee aan awood u helin mataqaana chance inuu wax barto iskuul iyo inuu dawo helo iyo inuu guri u ka soo kaco oo saddexda waqtina wax cuno ama ka badanba talaagada u buuxdo first class education u diyaar yahay oo waliba free ah horta bal inay ku mahadiyaan intaynan taa dib ka dhigin oo ilmaha xataa loo sheego la yiraahdo you are very lucky inaad waxan haystay waa inaad ka faa'iideysato laakiin aan la oran dhibaata tahay meesha wad ku baaba'aysaa Soomaaliya ku celinaya arinta horta in laga digtoonaado oo ilmaha intiisa fiican iyo wadanka aad joogtaba intooda fiican aad ilmaha kala xiriidho oo ilmaha aad u sheegto horta arinta waalidinta waa ku boolila arinta labaad waxa weeye waalidintu inay ilmaha isla qabtaan oo aan dumarka lagu sideyn caruurta oo la oran anigu 8 saac baan shaqeynaya inta kale meel baan ka shaahaya in la isla qabto caruurta oo nin waliba ma taqaana ee la iskala communicate gareeyo iyo arintii markii ugu horeysay aan barnaamijka sheegay oo ahayd waxbarashada waynu qiimeynaa waa inaynan ka hadhin
oo ilmaha everything oo aad samayn karto ilmahaaga tallaabadaad qaadaba ma taqaanaa diintiisii iyo caqiidadiisii iyo society-ga uu joogo for example Mareykan oo kale dee qofku haddaan aqoon fiican lahayn man function garaynayo taasna dee research-ka iyo cilmiga waqti aad u maasantay boqoshadan waad maasantay boqolkiiba boqol Cabdi Maalik everyone oo Soomaaliya ka soo dhawaada iskuul fiican xagga salaada wax kasto salaadaada macallin kula hadli karo ma laho iskuulkani waa iskuul fiican waxaynu leenahay hadda glass oo cusub oo lagu tukado salaada all Somali students waxay idin sheegayaan arday Soomaali iskuulka oo ku soo dhawaani kartiin waxaan haysanaa program u dhaho Somali Students Association oo macallimiinta la hadli karto wax kasto everyone waalidiinta ilmaani karaan ay warsani karaan macallimiinta cunugaaga intuu meeshu marayo iyo imtixaankiisa